waa madaxweyne farmaajo oo bixiyey waraysigii ugu horreeyey soona bandhigay xog la yaab leh cadaymo waaweyn iyo dagaalka lagula jiray ururka al-shabaab oo uu si adag uga hadlay dowladda carabeed oo dhaqaalo ka bixinaya sidii dagaalkan loo joojin lahaa iyo xasan sheekh maxamuud oo aad ugu jiljilicsana tacaalamka shabaab sheegaraya warbixintan oo ka hafiya dunida meelba ku toora muuqaalkana qaybta faalada nagula wadaaga aragtidiina waa hagaagan ku bilaabo waalidweynaha qurbaa ku nool waalid ka faa'iideyso fursadan ubadkaaga gee maxadkan ay ka baranayaan barashada quraanka kariimka iyo culumta shariicada islaamka waana maxad ku furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo usbuuca waxaana ubadka loo dhigayaa barashada quraanka kariimka barashada akhriska higaada luqadda carabiga barashada afkeena Soomaaliga iyo barashada culumta shariicada islaamka sida kutubta fiqiga xadiiska iyo tafsiirka waxa sidoo kale waalidiinta la baraya isla markaana laga saxaya at-tahiyaadka salaada iyo aayad kursida waalid hadda ka faa'iideyso oo hadda isqora maxadka tartiilul qur'aan online oo ah dugsi fac weyn oo ay sanad kasta ka qalin jabiyaan ardayda kala duwan ee caalamka ku nool ballanteenu waa inaynu hore ula xiriirno maxadka tartiil quraan online madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda maxamed cabdulaahi farmaajo oo waraysigii ugu horreeyey bixiyey ayaa soo bandhigay xogo muhiim oo ku aadan dagaalka lagula jiray ururka al-shabaab markii uu talada wareejinayay dhaqaalihii uu kaga tegay qasnada oo uu sheegay hadda in aanu kun shilin ku jirin dagaalkii dhex maray isaga iyo Roble iyo wixii isku qabateen Roble muxuu ku soo xushay maxayse sababtay isku dhaceen waxa uu sheegay in lagu qalday oo isagu rabin markii horeba in Roble laga dhigo ra'iisul wasaare uusan aqoon badan u lahayn laakiin dad ay saaxiibo yihiin ay u keeneen oo ku qaatay sabab la xiriirta inaanu siyaasadda wax ka fahamsanayn uu markaas uga aqbalay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa warbixintan uu siiyey warbaahin ku taala wadanka Turkiga waxa uu ku soo bandhigay xogta muhiimka ee ku aadan sida uu markaas farmaajo uga shaqeynay in kooxdii xasan sheekh maxamuud aysan talada ku soo laaban laakiin waxa uu sheegay in dowladda ay markaas diyaar u ah inay doorasho qabato sidaas daraadeedna xildhibaanada oo xasan sheekh maxamuud lacago tiro badan siinay sidaasna ay ku doorteen madaxweynihii hore ee Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo sidoo kale ka hadlayay wadanka Turkiga ayaa waxa uu adag kala duwan u jeediyay ra'iisul wasaare Roble isagoo sheegay inuusan ahayn nin siyaasadda wax ka yaqaan markii horena ay ku qaladeen qaar ka mid ah saaxiibadiisa oo doonayay in Roble uu noqdo ra'iisul wasaare laakiin waxa uu sheegay inuusan isagoo aqoon badan u lahayn oo nin darbiya fadhiya oo magaalada Nairobi maqaayada shaahmacaan sheekh ka cabi jiray anigu aqoon shakhsi uma lahayn ninkaas laakiin maqaayadaas ayaan isku arki jirnay rag aan saaxiibanahay ayaa isagu qalqalay in ra'iisul wasaare ka dhigo ayuu yiri maxamed cabdulaahi farmaajo sidoo kale wuxuu ka hadlay dagaalka ka socda gobolada kala duwan ee dalka ee lagula jiro ururka al-shabaab isagoo oo sheegay in dagaalkaas wajiga hadda uu leeyahay mid ka duwan oo yeelan doono maalmaha soo aadan maadaama sidoo hadalka u dhigay dowladda carabeed ka shaqeynayaan sidii dagaalkaasi loo xagal daacin lahaa iyadoo lacag tiro badan ay kooxdu ku bixinayso in joojiyo dagaalkan madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa intaas wuxuu ku daray in markaasi maamulka dowladda xasan sheekh maxamuud ay markaasi muujinayso hadda inay habacsanaan xoogani ka muuqato isla markaana ay u muuqamin ururka al-shabaab dagaalankiisa iyo la macaamilkiisa fahamsan iyadoo dowladda carabeed ay ka shaqeynayaan sidii loo xagal daacin lahaa dagaalkan lagula jiro ururka al-shabaab isagoo oo sheegay in lacago tiro badan la geliyey magaalada muqdisho isla markaana ay siinayaan siyaasiyiinta aan markaasi diyaar ku ahayn in shacabka Soomaaliyeed ee ururka al-shabaab iska xoreeyaan laakiin markaas iyaga ujeedadooda kaliya ay tahay in shacabka Soomaaliyeed ee markaasi ay ururka al-shabaab dhibaatayeen sanadaha ay ku sii fiirsadaan iyadoo dowladaha carabeed ujeedada ugu weyn ay ka leeyihiin in ururka al-shabaab ay markaasi dagaalkan lagula jiro oo kooxda ay xagal daaciyaan ay ku sheegeen in Soomaaliya horumartay dhaqaale ahaan iyo awood ahaan isku filnaatay aysan iyaga dan ugu jirin oo duruufo adag ay ka soo wajahayaan isla markaana
dantooda ay noqon doonto mid markaasi kooxdu aysan aqbali karin in ciidanka dowladda Soomaaliya ay gebi ahaan dalka la wareegaan dowladaha Carabeed ay ku fashilmayaan danihii ay ka lahaayeen deegaanka shaqare xogaan qad faraan ugu la dogartay intan iyo kulanti dambe nabadgeliyo